c'est la deuxième partie, car la première partie m'a été interrompue, je ne sais pas par qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a été interrompu, ça a été bloqué. Sûrement que les techniciens ou les hackers qui travaillent pour le système IOGiste ou pour habiller ont réussi à me bloquer. Bon, ce qui veut dire qu'ils ont bloqué la première partie, mais la deuxième partie, je vais la continuer. Ce n'est pas un problème. Mais on est là pour lutter et on va continuer la lutte. Surtout, je vais faire passer mon message pour que tout soit clair. Ce qui veut dire que demain, le 3 octobre, une fois que cette manifestation elle va démarrer, s'il vous plaît, chers compatriotes, pour suivre cette deuxième vidéo, il faut reprendre la première vidéo. Brothers and sisters, some technical problem or some hackers block me in the first message, my apple, in the first live. If you want to understand exactly, not this one, this is my second time, but take the first. I will make first part and second part. Okay? Maybe some hackers or some service secret try to block me, but Mr. Dabarkale is not stupid. And to stop this message, it is very important for Ethiopia, for Djibouti, and the other people, brothers and sisters in the region. Comme je vous disais, c'est que si demain, l'armée éthiopienne, elle tire dans le tas à Addis Ababa, qu'est-ce qui va se passer? L'armée éthiopienne est composée de Oromo, Amara, Tigré et autres. Benishangul, Waleta ou autres. Mais cette armée-là, quand elle verra les morts qui vont se compter par dizaines et centaines ou autres, mais automatiquement il y aura une réaction à l'intérieur de l'armée. C'est normal, parce que les militaires ne vont pas regarder toute la journée à ce qu'il y ait un massacre au niveau de leur population. Ce n'est pas possible. Automatiquement, il y aura une dislocation de l'armée et c'est là où il y a le risque qui peut éventuellement s'avérer être vrai à ce que l'armée puisse être totalement cassée. Exactement comment ça s'est passé avec l'armée de Siad Barre quand il tombait. Le risque, il est là. Le risque, il est là et c'est grave. Parce que cette fois-ci, l'armée est prête à tirer dans le tas puisque on a entendu le général donner des ordres dans ce sens à la télé éthiopienne. Il y a une chose qui est claire aussi, c'est que les Oromos sont décidés à 100% d'aller libérer demain tous les activistes en prison, à Kaliti ou ailleurs, à l'intérieur d'Addis Ababa ou dans les autres grandes villes. Ils sont prêts à mourir pour aller les libérer, ça c'est un point. Et ils sont prêts à prendre aussi la deuxième direction, d'aller destituer Abiy Ahmed directement à Arad Kilo, dans son bureau, et qu'il n'y a plus de Abiy Ahmed ou de gouvernement. Ça, c'est les projets qui sont mis en place par Kero et qui n'ont pas caché et qui l'ont dit partout et à maintes reprises dans les social media, dans les médias sociaux. C'est pour vous dire qu'il y aura une transition demain, en bien ou en mal, mais qui ne souffre rien, qui n'a pas de sacrifice, n'arrive pas à se libérer. Mais on espère que au moins il y aura une libération avec le moindre de casse et surtout le moindre d'innocents qui risquent d'être blessés ou tués. Je le souhaite et je vais prier pour ça. Mais voilà le risque. Et l'autre risque aussi, c'est que si effectivement l'armée se disloque et que l'armée se casse, chacun tire de tous les côtés pour essayer de défendre sa propre ethnie, sa propre tribu, et automatiquement, il y a un risque à ce que l'Éthiopie aussi se disloque. Et que chaque État, qui est composé de 9 États, puisse prendre le contrôle de son armée et de sa police, et que, à ce moment-là, chacun puisse faire passer
à son Parlement l'article 39 qui lui autorise de demander l'indépendance de l'Éthiopie. C'est-à-dire que, automatiquement, l'Éthiopie risque d'exploser et il n'y aura plus d'Éthiopie. L'Éthiopie risque d'être divisée par des petits États. C'est un risque pour demain. Voilà le risque qui est très grave pour l'Éthiopie, dont je voulais vous en parler. Et il y a une dernière solution, puisque si les Oromos demain ne se libèrent pas et ne libèrent pas l'Éthiopie contre le régime d'Abiy, mais Abiy, il va mettre en place la loi martiale militaire et il va faire revenir une dictature, sinon pire que celle qui était à Mengistu Haile Mariam. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la dictature va reprendre sur un contexte militaro dirigé par Abiy, qui est un ancien militaire, un colonel de l'armée de la sécurité éthiopienne. Et voilà, c'est fini. Est-ce que l'Éthiopie est prête pour ça, pour repartir sur une nouvelle dictature? Est-ce que le monde va laisser? Est-ce que l'Europe va laisser? Non, c'est plus possible. La dictature dirigée par des militaires, c'est terminé pour le monde. Terminé. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, il n'y aura pas de dictature, il y aura par contre une cassure de l'Éthiopie, c'est un fait, et chaque État pourra diriger sa propre région comme il le veut. C'est un point. L'autre point, si effectivement les Oromos, demain, ils n'arrivent pas à maîtriser et à sauver cette nouvelle démocratie, cette nouvelle république en Éthiopie, et à ce moment-là, c'est la dictature. Mais s'ils réussissent, on a une chance à ce que l'Éthiopie se stabilise. Et que là, l'alliance qui a été lancée comme appel par le Tigray au peuple de l'Éthiopie, notamment Tigré, Somalie, Afar, Bénéchengul, Waleta et Oromo, là, il y a une possibilité de chance à ce que l'Éthiopie soit stabilisée et que le régime d'Abiy saute. Mais en tout cas, tous les risques sont là. Tous les risques sont là. Et comme je vous ai dit, le Parlement éthiopien, maintenant, c'est terminé. Il a terminé son temps. D'ici quelques jours, c'est terminé. Il n'y aura plus de légalité au niveau du Parlement. Le 30 octobre de ce mois-ci, Abiy Ahmed ne sera plus Premier ministre de l'Éthiopie. C'est terminé. Le 30 octobre. C'est-à-dire que si Abiy n'est pas, sur un contexte de légalité, un Premier ministre de l'Éthiopie, automatiquement, son gouvernement aussi ne sera pas une entité légale, politiquement parlant. Dans ce contexte-là, l'Éthiopie sera un gouvernement puisqu'il n'y aura plus de légalité. Et c'est un fait. Voilà l'Éthiopie où est-ce qu'on est. Mais là, maintenant, je vais m'adresser tout particulièrement un message à mes frères et sœurs, surtout les leaders politiques Afar et Issa de City et de Aoudal. Pourquoi? Tout simplement, je voulais vous dire, c'est que à partir de demain et les jours qui vont venir, il y a une rébellion qui s'est formée au niveau de City qui est prête à descendre sur Djibouti. Au niveau d'Aoudal aussi. Au niveau d'Aoudal, il y a deux fronts qui sont mis en place, armés jusqu'aux dents. C'est le front préparé par Mohamed Jama, le colonel de la garde républicaine, qui a amené armes et bagages à former une nouvelle milice de mercenaires pour venir supporter Ismaël Omar Guelleh à Djibouti. C'est un fait. C'est un fait indéniable. Et ça, tout le monde est au courant et tout le monde est informé. L'autre cas, c'est que le peuple Issa de l'Éthiopie, de la Somaliland et de Djibouti ont décidé de supporter cette nouvelle rébellion Issa pour destituer Ismaël Omar Guelleh et son régime. C'est indéniable. Et ils vont descendre sur Djibouti. Et c'est là où, effectivement, mon appel s'adresse tout particulièrement aux Afars de Djibouti. Ne vous mimisez pas dans cette nouvelle guerre qui se prépare. Les Afars doivent se mettre de côté en toute neutralité. De côté. Je vous le dis. Je vous demande. Et surtout, ce message s'adresse à Ougouré Kiflé du FRUD 1. Ougouré Kiflé, je te dis, cette guerre ne nous concerne pas et il faut laisser nos frères et sœurs de la rébellion Issa de rentrer à Djibouti et de déloger Ismaël Omar Guelleh et ses mercenaires. Je vous le dis. Je vous le dis pourquoi. Parce que je sais, et je suis au courant d'un deuxième plan diabolique qui est préparé par Ismaël Omar Guelleh
à vouloir massacrer des Afars à Djibouti sous prétexte de dire les Afars veulent prendre les armes et veulent prendre le pouvoir. Alors, les Issa doivent s'unir contre les Afars. Ça, c'est le deuxième plan diabolique qu'il est en train de préparer parce qu'il sait que les Issa vont descendre et sont prêts à descendre, armes et bagages, sur Djibouti. Et lui, avec sa milice de mercenaires qui sont à Djibouti, il va essayer d'attenter à vouloir massacrer les Afars pour créer une révolte Afar afin de pouvoir unir avec lui les Issa pour sauver son trône et ses crimes commis depuis des années, depuis 43 ans. Alors ce jeu-là, c'est pour vous dire qu'à partir de ce jeu-là, nous, les Afars, on doit se mettre de côté et attendre que nos frères et sœurs de la rébellion Issa puissent faire le travail à déloger IOG. Oui, c'est très important. Je demande aussi à mes compatriotes Afars de l'Éthiopie et de l'Érythrée de ne pas descendre et de s'immiscer sur cette nouvelle rébellion qui est en guerre contre Ismaël Oumar-Guelleh. La rébellion Issa, elle n'est pas en guerre contre les Afars. Elle est en guerre contre Ismaël Oumar-Guelleh et son régime. Alors je vous dis, ne vous minimisez pas, parce que là, c'est terminé. De Seti jusqu'à Aoudal ou Salal, les Issa sont armés jusqu'aux dents. Et ils ont décidé de faire passer ce régime-là, mais vraiment en enfer. C'est clair et net. Alors, mes chers compatriotes Afars, faites passer ce message. Et je vous dis, bon, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, ne bougez pas. Et je vous demande aussi, dans les jours à venir, si vous pouvez aller du côté de Tadjoura, Obok ou du côté de Dikil, ce serait très bien aussi. Parce que Djibouti sera vraiment une poudrière à partir du moment où l'Éthiopie va aller vraiment dans un sens comme dans l'autre. Je vous dis, demain, l'Éthiopie va rentrer dans un cycle, mais vraiment très dangereux. Et à partir du moment où le gouvernement éthiopien ne pourra plus fermer ses frontières et protéger ses frontières, automatiquement, on revient exactement en 1991 quand le TPLF est rentré sur l'Éthiopie et que l'armée de Mengistu a été totalement mise de côté. Alors dans ce contexte-là, je vous dis, tout le monde attend, que ce soit Afar ou Issa ou autre, tout le monde attend à ce que, effectivement, il y a ce total, comment on appelle ça, ce total cassure qui peut se faire contre le régime d'Abiy. Mais il y aura une période de transition qui peut aller 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, c'est une opportunité pour le peuple de Djibouti, pour le peuple Issa et Afar, à pouvoir déloger Ismaël Oumar-Guelleh son régime. Parce que là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de contrainte qui est faite par le régime d'Abiy ou le gouvernement éthiopien. C'est terminé. Alors, on a une certaine liberté de pouvoir vraiment bouger. C'est pour ça que je dis, les Afars ne doivent pas bouger sous aucun prétexte. Terminé. Après, nous allons négocier avec nos frères et sœurs de Seti ou autres, la rébellion, pour composer une alliance d'un nouveau gouvernement pour une nouvelle république, et on pourra remettre tous les dossiers sur la table, vraiment. Et je pense, Inch'Allah aussi, que tous les criminels de ce régime-là, en tête Ismaël Oumar-Guelleh, Khadra et tous les autres, seront mis en prison à la place de notre frère Fouad, Gabassé et les autres, à Gabon. Inch'Allah. Je vous dis, ne bougez pas. Et par contre, prenez vos précautions, préparez-vous. Et si vous avez la possibilité d'aller passer des vacances à Obok, à Tadjoura et à Dikil, faites-le. Ou même si vous voulez aller en vacances à Samara, allez-y. Parce que vraiment, la région, à partir de demain, elle va être dans une situation, mais vraiment, en bien ou en mal, mais il y a des moments difficiles qui nous attendent. Voilà ce que je voulais vous le dire et les messages que je voulais faire passer. Afarei, ne vous mêlez pas et surtout, protégez-vous contre les mercenaires d'Ismaël Oumar-Guelleh qui vont essayer, parce que Ismaël Oumar-Guelleh, sa dernière carte pour rester au pouvoir, c'est de refaire le même coup du Frud dans les années en 90-91.
vous me suivez, qu'il avait dit, oh les affaires, les affaires, les affaires, les affaires. Il veut refaire ce même coup parce qu'il sait que les Issa ont pris une décision finale de le déloger. Avec Afar ou sans Afar, les Issa sont décidés. Et ce n'est pas les mercenaires de Aoudal où les armes ont été transitées par Mohamed Jama qui vont faire la donne. C'est fini, c'est terminé. Alors c'est pour ça que je dis, il y a une donne qui peut éventuellement faire capoter ça, c'est les Afars. Et les Afars ne doivent pas bouger, ce n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de pouvoir laisser nos frères et sœurs de Siti, comme elle a dit notre grande artiste Nima Jama, venez à notre secours, et cet appel a été entendu. Elle a lancé cet appel aussi pour les Afars de l'Éthiopie, c'est vrai. Mais l'appel a été entendu au niveau de Siti, au niveau de Salal Aoudel. Et ils vont descendre. La rébellion, elle est prête, elle va descendre. On attend juste que Abiy Ahmed et son gouvernement dégagent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Faites passer ce message et traduisez à mes compatriotes Afars de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Ne bougez pas. Suivez le conseil de Sultan Abdallah de Berkale. Ne bougez pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous dis, Jum'a Mubarak, Inch'Allah, khair. Voilà, le matin, vous êtes salamantin. Salata muslim kan nagu salamay. Salata khair kan nagu salamay. Waxaan ilaa marka hore, Jum'a Mubarak. Jum'a wanaagsan. maanta taariikhdu waa 2 Oktoobar waa maalin jimca 2020 waxaa baaqan ii soo diraya walaalkiin Sultan Abdallah de Berkale madaxweynaha mustaqbalka Jabuuti waxaan halkan usoo fadhiistay anoo tixraacaya qodobkii koobaad ee aan ku hadlay xajiradii hore oo liiga gooyey qolayga soo gashaan malayaa qolooyinkan haakerada leedahay iyo wixii la sameeyba adu 2 qaybood bay noqonaysaa qaybtii koobaad iyo qaybtii labaad marka waxaan usoo fadhiistay maanta halkan arrimuhu xaaladda Ethiopia iyo Djibouti meel adag ay weligeed ay dhicin bay maraysaa taa aan u jeedo waxa weeyaan Ethiopia waxay gashay qallaaso madaragtay khatar ku ah jiritaankeeda inay burburto inay madaragtay iyo inay wanaag ku dambaysaba marka beritoole oo bishii taariikhdu 3 Oktoobar tahay waxaa dhacaya sidaad wala ogtihiinba maaragtay banaanbax ay oromo qabanqaabinayso oy ku ducaysanayso oy ku maaragtay barwaaqa soormayso taariikhdii oromada ee isheya la oran jiray berey ka dhacaysaa Ethiopia oo dhan gobollada oromada inta ugu badan waxayna ballan ku qaateen inay beritoole ka banaanbaxayaan Addis Ababa waxaana hogaaminaya oo hawsha wadana Cairo jabhadda maaragtay in xaqudirka activistka ee Carolina ee halgankii maaragtay dhinac walba ka wada marka Cairo Britole banaanbaxaas way ku dhawaaqday laakiin mid baan dib u raacinaa intaan aan gudagelin arrimahan waxa weeyaan sidaad ogtiinba dowladda Ethiopia waqtigeedu wuu dhamaaday sharci ahaan kuma joogayso maskaram sodonkeeda dhowr beri kadib maxaa baaba'aya oo dhammaanaya baarlamaan ma jiraayo xagga sharciga baarlamaanku ma jiraayo waqtigiisii wuu dhamaaday bil ka hor in baarlamaan la soo doortay ahayd oo halka baarlamaankaas uu soo doorto markaa kadibna bil kadib maaragtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia wixii oo dhan way baaba'een marka dhowrkan beri oo ku beegan maaragtay bisha xabashiga maskaram sodonkeeda Ethiopia baarlamaan sharciya kama jiraayo waa koow laba bisha sodonkeeda Oktoobar aan ku jirna maanta ee labada sodonkeeda maxaa dhacaya waxaa dhacaya oo ku eegan Abiy Ahmed doorashadii uu baarlamaan ku soo doortay labada sanadood macnaheedu Abiy bisha sodonkeeda ra-iisul wasaaraha Ethiopia ma noqonayo sharcigiisu wuu dhamaaday ina baarlamaan ma jireen baarlamaankii uu doorashada u dhici lahaa in bil ka hor ama 2 bilood ka hor waa ku yiri maaragtay cudur baa jira COVID-19 virus baa jira ma jiraayo xoog buu ku haystaa marka isaga laftigiisa taariikhdiisu waxay ku dhamaanaysaa bisha Oktoobar sodonkeeda ra-iisul wasaare ma jiraayo maxay keenaysaa dowladiisuna way dhacaysaa macnaheedu Ethiopia waxay galaysaa sharciga maaragtay u yaalla constitutionka meel ay dowlad ka jirin oo xaqa meel uu baarlamaan ka jirin oo xaqa halkaa bay ku socotaa Ethiopia marka beritoole waxay dhici karaa inay oromo guulaysato oo iyadoo kaashanaysa ummado kale sida Tigreega Amxaarada
amxaarada qayb ka mid ahaa way jireen cafarta soomaalida benishanguul walayta oo halkaas alliance oy tigray ku dhawaaqday inay halkaa lagu badbaadiyo etoobiya waa wax suurtagala laakiin beritole oromadu markay dabaaldegaan samaynaysa soo baxayso waxay ballan ku qaaday inay soo saarayso raggii laga xidhay ee activismka dhammaantood jawaar maxamed raggaas oo dhan xabsiga kalinta ku jira kuwa kaloo dhanba iyo magaalooyinka maaragtay oromadii meel kastaba ku jira inay maaragtay xabsiga ka soo saareen waa beritole labaad waxay ku dhawaaqeen inay maaragtay u soconayaan abiy axmed xafiiskiisa ku yaalla 4 kilo oo isagana halkaa ka takhalusayaan way ka saarayaan macnaheetu waxa weeyaan oromo way ka go'an tahay beritole inay dowladda abiya inay dhulka dhigto hadday dhigi weydo maxaa dhacaya waxaa dhacaya siduu ku dhawaaqay janankii ciidamada etoobiya toddobaadkii hore wuxuu yidhi haddii beritole 3 oktoobar sabtida la soo baxo oy oromo iyo dad kale soo bannaan baxaan ciidanku rasaas buu ku furaya macnaheetu abiye wuxuu amar siiyey ciidamada inay rasaas ku furaan shicibka maaragtay bannaan baxaya taa hadday dhacdo waxaa dhacaya dhimasho aan malayn karin dhimasho aan la malayn karin malyuun 2 malyuun oo qof oo soo baxday addis ababa waxa weeyaan khatarteedii leedahay maxaa kaloo dhacaya waxaa dhacaya ciidanka lagu sheegayo ee difaaca dalka qaranka etoobiya iyo meel kasta buu joogo ciidanku wuxuu difaacaa xuduudada cadowga dowladdaas soo weeraraya iyuu ciidanku uu difaaci karaa laakiin cadow ku dhex jira siduu u sheegayo abiye oo shicibkii siiya dee cadow ma noqonayo ciidanku ayay ka kooban yihin dee shicibka ka kooban yihin dee weeraradood marka la dilo oromo amxaare iyo tigreya rasaastu qolo ma leh way dilaysaa ummadda way gumaadaysaa rasaastu markay dhacdo oy dhimashadu dhacdo ciidanku wuu kula jabayaa hadal ma jiro ciidanku wuxuu ku dhisan yahay qabiiladaas oo dhan dee qabiiladaas marka rasaas lagu furo caasimadda iyo meelo kaleba waxa weeyaan ciidan ma jiraayo ciidan kastaba qabiilkiisuu noqonaya oromay noqonaysaa amxaaray noqonaysaa tigre buu noqonayaa cafar qabiil walba qabiilkiisuu daafacaya marka taabaa keeni karta inay sidii madarad maxamed siyaad bare ciidankiisii uu ku burburay oo markii dambena muqdisho qabiil loo galay oo laisku baabiyey tii baa dhici karta etoobiya ilaahayna kama dhigo laakiin waa khatarteedu waa tabaritoola dhacaysa oo madaragtay qarka u taalla mid baa jirta markaas oo iyaduna badbaadin qarana oo dhici karta inay etoobiya ku badbaado waa ciidanka xoogga leh ee tigray ciidankeedi waxay keentay amxaara ilaa iyo maaragtay dhise ilaa iyo cafarta dariiqeeda ilaa iyo maaragtay gobolka amxaarada tigray waa diyaar inay soo dhaqaaqdo oy oromo iyo ummadda daafaceeda maaragtay ka soo horjeeda abiya iyo taliskiisa inay soo gasho dagaalka taasuna waa suurtagal oo waa quwad kale oo loo baahan yahay tigrayna shalay waxay ku dhawaaqday in maaragtay oromo cafar soomaali benishanguul walayta dhammaanteed inaan gacanteeda la isqabsado oo laga soo jeesto taliskan abiy axmed waa suurtagal taa hadday dhacdo waa takaliyaadkay ay etoobiya ku badbaadayso oo kadibna markaa dowlad cusub oo qarana la dhiso marka abiya meesha laga saaro taa hadday dhici weydo oo beritol oromo la jebiyo oo laga adkaado oo gumaadka u dhaco maxaa dhacaya waxaa dhacaya maaragtay dee dowlad maaragtay ciidanku ka taliyaan tii mengista hale maryam berigii communismka taliskii maaragtay ciidamadu ka talayeen uu abiye madax ka yahay yaa meesha maaragtay fadhiisanaysa maanta etoobiya taa ma qaadi kartaa afrika ma qaadi kartaa adduun weynuhu ma qaadi karta waa maya waktigii ciidamadu ay meesha gacanta ku qabanayeen ma jirto waa taas wax dhacaya ma jirto wax maaragtay mengista hale maryam taliskii ciidamada dib u soo celinaya xaaraan bay ka tahay marka macnaheetu waxa weeyaan waxaa dhici kara markaas in oromo haddii laga adkaado oo la jibiyo oo haddii tigrayna maaragtay ay wax qaban kari weydo in markaa gobol kastaba markaa uu ku dhawaaqo qodobkii u fasaxay baarlamaankiisa ee 39aad ee la odhanayay etoobiya waan ka go'nay tigray ay dowlad noqoto iskeed u bannaan cafar soomaali benishanguul walayta amxaara dhammaantood oo etoobiya halkaas maaragtay ku kala baaba'do waa khatarta meesha taala haddii heshiiskaas iyo allianskaas ay guulaysan waayaan etoobiya ma jirayso mana joogayso in ciidan dictatorshiba oo abiy axmed uu madax ka yahay oo tii mengista hale maryam inay soo noqoto waa xaaraan tigrayna ma ogolanayso oromo ma ogolanayso cafar ma ogolanayso soomaali ma ogolanayso
benishangul wala talis ka baddaaya amxaaro unba ogolaanaya amxaarana de iskama celin kara intaasoo ummada quwadu ku qabsadana ma haysto marka etoobiya halkaa bay ku kala socon kartaa marka insha allah taa baan doonaya maarata inaan ummadda aan la wadaago oon niisii sheego beritole waa khatarta maarata jirta iyo kala guurka ka dhici kara etoobiya oo annakana taabsanaya jabuuti oo soomaaliya taabsanaya eritrea taabsanaya marka middan usoo galay meesha waxa weeyaan walaalayaal waxaad ogtihiin oo jira oo qolo walba ay ogtahay ummadda reer jabuuti iyo ciise iyo canfarba in jabhad ciisa oo quwad leh oy soo dhaqaaqayso oo city joogta iyo joogta maaragtay awdal waad ogtihiin maarata maxamed jaamac koloneelka maaragtay calooshuu shaqaystee u shaqeeya ismaaciil cumar geeli hub iyo ciidan inuu ka dhisay halkaa iyo maaragtay bulaxaar iyo geerisa uu leeyahay jabuuti soo gala oo ismaaciil cumar geeli badbaadiya taliskiisi oo walaal iyo ilmaadeernimo sheekadu halkaa ka socoto waa qabiilka maxamed jaamac iyo ismaaciil cumar geeli ay wadaan oo ay doonayaan inay dalkooda xukunkooda ku daafacdaan laakiin ciise taas uma joojinayo ciise go-aan buu ku qaatay go-aanna uu ku gaadhay in taliska abiye markuu dhaco beritol wixii ka dambeeya uu burburo ya inuu ciise soo dhaqaaqayo uu jabuuti kusoo dhaqaaqayo su-aasha waxa weyaan mercenariinta ismaaciil cumar geeli 500 oo ka soo qaatay maaragtay hargeysa uu muuse bixi soo siiyey uu ciidanka maaragtay ku fiicsaa ku daray ma daafici karaan waa maya way baaba'ayaan ciidanka jabuuti 7 baan u qabanayaa 7 yaan u qabanayaa aba 2 toddobaad u badantay ma sii joogayo wuu burburayaa marka ciise meesha wuu qabanayaa isagoo walaaladii canfareedna kaashanaya laakiin baaqayga muxuu ujeedaa baaqi waxaan usoo dirayaa canfarta jabuuti baan usoo dirayaa oo khasuusan saaxiibkaygii hore walaalkaygii hore uguna kifle waxaan leeyahay uguna kifle meelna ha ka soo gelina furud meelna ha ka soo gelina canfaray inaad hortaagtiin walaaladeenna ciise ee city iyo maaragtay awdal nooga soo gurmanaya siday taliska nooga qaadaan ay noo gacan siiyaan shalay hawsha way ku jireen calanka markii gumaysiga laga qaadayay maanta waa mar labaad aan u baahannahay walaaladeeda city iyo awdal ee ciise inay mar labaad noo soo kacaan ay noo soo gurmadaan ninkii markaa habeertay maaragtay isheeg nimca jaamac migel ilaahay cumrigeeda hadaaye baaqa u dirtay ciise iyo canfar baaqa waa la malqay bilka hore ciidanku waa diyaar jabhaddu waa diyaar laakiin maxaan doonayaa ugula kiflow iyo fruudka jabuutiyow ha dhaqaaqina fruudka dhacami ma jiro taas iska ilooba waa been laakiin fruudka la sheegayo ee jira jabuuti anigu waxaan aqoonsanahay inuu yahay ugula kifle ha dhaqaaqina ina cumar geelle waxaad ku taakulanaysiin ma jirto wuuni khiyaamadeeyey wuuni baabi'iyey wuxuu niga dhigay wasakhiinta ugu hooseysa yuu niga dhigay siduu nigu ciyaaray waad garanaysiin siduu raggiina u baabiyey waad garanaysiin siduu ummadda canfareed u gubana u baabiyeyna waad garanaysiin marka waxaan leeyahay walaaladiina ciise faraha ka qaada daaya way soo daadegayaan waa ballan baa nigu qaaday inay soo daadegayaan beritoole markuu abiy axmed dhaqada ka baxo ninka kaleatee meesha ku haya wuxuu ahaa abiy axmed faransiisku wuu ka jeestay maraykanku wuu ka jeestay taana nii gudagalaya oo nii sheegaya marka canfaray joogsada messajkaana u dira walaaladeenna canfareed etoobiya jooga kuwa eritrea jooga dagaalkaa ha soo gelina hana soo dhaqaaqina daaya faraha ka qaada ummadda reer jabuuti iyadaas xoreynaysa ummadda reer jabuuti iyadaas xoreynaysa taliskanna waa wuu baaba'aya abiy axmed buu raacaya ra-iisul wasaaraha etoobiya uu raacaya marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay iga gaadhsiiya baaqaas waan la hadlay af ingiriisi baan kula hadlay cajiladeedii hore waxaan kula hadlay af faransiis waan ku macneeyey af soomaaligana waan iga ku sheegay canfarta etoobiya iyo canfarta eritrea waxaan leeyahay halkiinaa jooga naga war suga ilaa intaan maaragtay aan isku imanan annakii walaaladeeda maaragtay city oon halkaa dowlad cusub oo tii labaada oo qaran reer jabuuti aan dhisayno oo walaal aan ka dhigayno sidaan niigu sheegay city samaara iyo dhinac walba iyo awdalba aan walaal ka dhigayno mercenaritu waktigoodu wuu baaba'ay wuuna soconaya marka please and please faraha ka qaada daaya waa kaas ummadda reer jabuuti waxaan leeyahay waar is diyaariye raashinkiina cuntadiinna
biyihiina isdiyaariya waa taabaan nagula talinayaa beritole oktoobar 3 etoobiya isbeddel aad malayn karin baa ka dhacaya waxaanan ku qiyaasay bil ilaa 3 bilood inta maaragtay etoobiya cusub ay soo dhalanayso waa hadday soo noqoto haddii kale etoobiya way kala baxaysaa oo gobol walba wuxuu noqonayaa gobol madax bannaan oo dowladda ku dhawaaqaysa marka cityna maaragta waxay noqonaysaa gobol ciise city noqonaya iyo wixii city ka kooban oo dhan hadday noqoto gadabursi iyo isaaq oo city ku nool oo iyaku walaal noqonaya dowlad dhisanaya halkaas dowladda haddii doonto waxay kusoo biri kartaa jabuuti samaara saas way kusoo biri kartaa marka waxay taa waa mar labaad baan ka wada hadlaynaa oon meel isla dhigaynaa laakiin maanta waa inaan badbaadinaa ummaddeena reer jabuuti taliskan mangaga ee criminalkana meesha laga tuuraa waa lama huraan marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay canfaray ha dhaqaaqina faraa ka qaada waxaan la hadlaya markaas ummadda reer jabuuti aan leeyahay waar isdiyaariya kala guurku wuu taagan yahay waxaan laga maarmayn oo caddaatay taliskan ma soconayo walaal iyo huunno iyo dimuqraasiyad xaaraan bay ka tahy inuu cumar geelle wuxuu dhaafay khadkii casaa dhiiggiisii iyo gacmaha intuu ku wato iyo intuu baabi'iyey way dhaaftay marka qasab bay ku tahay qasab bayna ku noqotay inuu ciise ninkan ciise baabi'iyey ee loogu magac daray ciise dilay inuu magacii iyo sharaftii ciise soo celiyo cafir ma soo celinayso magacii iyo sharaftii ciise waxaa soo celin kara oo keliyaatay ciisaa soo celin kara siduu ku soo celin karaa inuu taliskan uu meesha uu gacanta mariyo marka waa lama huraan marka waxaan leeyahay abtaaladay guul baan u rajaynayaa khayr baan u rajaynayaa waxaa kaloo nii sheegayaa walaaladay dagaaladu jabuuti way ka dhacayaan oo taas laba calis ma weydiinayso oo waa diyaar sida wararka igu soo gaarayaan laakiin mid baan nii sheegayaa waxbaa ka cabsoonina maraykanka waxbaa ka cabsoonina faransiiska waxbaa ka cabsoonina china taa maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa iyaka laftigoodu taliskan way ka daalayeen wayna nacayaan meelay ka soo galayaanna ma jirto mid unba iyaku ay ku dadaalayaan ay qabanayaan oon oga oo nimanka niisii sheegaya dekadda jabuuti see u dhan tahay berimetrikeeda oo dhanba waxaa qabanaya maraykan iyo faransiis iyo chinos wata yaa qabanaya kow si uu dagaal sokay dhexdooda uga dhicin waa dekadda kow waa areboorka labo areboorka inta ku megaarsan oo dhan inta u dhowaan walba wuxuu noqonayaa zone aan la soo faragelinayn oo jabadu aanay soo gelayn areboorka iyo dekadaha lama soo galayo warka uu nicodey shabeelleyna ha sheegina ciidanka militariga ee maraykanka shabeelley joogana ha u dhowaanina hana soo gelina inta kale ee jabuuti way nii fasaxan tahay waa fasax maraykanka faransiiska iyo yurubiyaanka isla jooga jabuuti iyo chinuhu dekadda way qabanayaan oo wax loo baahan inay badbaadiyaan areboorka inay qabtaan iyo badbaadiyaan waa loo baahan yahay shabeelleyna way qabsanayaan ciidankooda militariga oo way xidhanayaan taas maxaa looga jeedaa waxa weeyaan reer jabuuti way u taallaa ciise iyo cafar iyo qolo kastaba inay iyaku xoreeyaan laakiin meelihii halboolaha ee dalka jabuuti hadduu ka burburo maaragtay aan soo kabanayn waa dekadda iyo dekadaha iyo areboorka wax kaloo jira may jiraan maaqaladu ina cumar geele dhistay iyo raggan tuuginta waxay dhisteen taas looma joojinayo marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay jabhadda 3 meelood ha isku tegina hana isku dhowaanina messageka baan nii soo dirayaa areboorka waa la xidhayaa sektaarkaas oo dhanba dekadda waa la xidhayaa ilaa iyo sektaarkaas oo dhanba ilaa iyo waxaan jecelahay dekadda marka loo tagayo xaggaa iyo maaragtay isheeg muxuu ahaa xaggan maaragtay kaga qabo semiramis ilaa iyo maaragtay xaggan iyo ertedega semiramis ilaa iyo maaragtay marka la tagayo maaragtay cinema odeon
ilaa iyo maarata halkaa iyo seestaa intaa way xidhan tahay waa dikadaa loo daayey wixii kale magaalooyinka ku dhex jira dad ku dhex jirana waa iyakii nasiibkood laakiin intaa lama galayo waa zoon xidhan weyn qaybta aeroboorkana saasi leh ilaa iyo xerada fardaha korkeeda ilaa iyo xumbuli halka la soo galayo ee ku saabsan maaragtay sinema odeyon lo ohan jiray sinema eden lo ohan jiray intaana waa la xidhayaa intaana waa la xidhayaa oo waxay noqonaysaa zone aeroport ayay noqonaysaa inta kale ee jabuuti fasax bay nii tahay jabhadow way nii fasaxan tahay marka waxaan leeyahay oon mid kalean ka dardaarmaya oon u sheegayaa walaaladay abtaaladay ciisaan u sheegaya inuu cumar geelle balaan biibu wataa uu doonayo inuu ciise haddana maaragtay uu ku soo jiito balaan biigu waa maxay canfarta jabuuti joogta yaa rag guryahooga la dhigayaa hub baa la dhigayaa hubkaa la dhigaya maxaa looga jeedaa waxaa la leeyahay canfartii baa doonaysa inay xukunka qabsato canfartii baa ciise maaragtay doonaysa inay meesha ay ka baabi'iso canfarta maaragtay si looga harto ciiso waa kaa marka rag ciisaha yaa arrintaas loo xil saaray oo u shaqeeya inuu cumar geele reerkiisi noqotay ee kuwa kale noqotay iyo merceneerka laga soo qaaday hargeysa noqotayaaba in canfarta lagu gumaado jabuuti maxaa looga jeedaa waxaa la doonaya in canfarta eritrea iyo canfarta etoobiya lasoo dhaqaajiyo sheekada la socda in lasoo dhaqaajiyo oo halkaa markaa canfarta eritrea canfarta etoobiya markay soo dhaqaaqdana eritrea markay soo dhaqaaqdan la yaraa o soomaaliyey canfar baana jabuuti qaadanayso xabashi ka dhigaysay oo gaalo ka dhigaysay anakoo muslinay soomaaliyey ruwaayaddaa wadaa inuu cumar geele farmaajoy soomaaliyey hiil iyo hool walaalba iisoo gurmaday sheekadaabuu wadaa waa blambigiis marka waxaan leeyahay jabhadda ciise ee abtaladay ka hortaga aniga ugu baaqaya canfarta inta bixi karta ee socon karta ee tajoorooba ku bixi karta ee daqlu bixi karta ee samaano socon karta iska nasto iska baxa aqaladiina wixii burburay wixii kala wadi baa loo dhisi taa ka seexda taliskan waa inuu meesha ka baxa marka ciise waxaan leeyahay abtaal plan b gaab wadaa inuu canfar meesha ku gumaado canfarta jabuuti waad ogtihiin waanad garanaysiin hub ma seeto ruwaayaddii maaragtay ka dhacami baa fruida oo hub sitiyo sheekadaas way dhammaatoo dabarkaali waa ku daaqadda ka saaray marka aniga baaq u diray ugure kifle aniga u sheegay ugure kifle iyo fruudka jabuuti joogay waa fruud gacmo maran oona hubna haysan marka raggaas waxaa la doonayaa in meesha lagu gumaado oo la yaraa ciisaa gumaaday la socdo marka in plan bgaas inuu doonayo inuu meesha uu ku baabi'iyo ciisaha maanta go-aan ku gaadhay inay sharaftii iyo magacii ciise soo celiyaan iyuu doonay inaan ku baabi'iyo muxuu kulu doonayaa inuu arrinta ka dhigo maaragtay dagaal international oo sokeeya nincii soomaali jecel buu iska dhigayaa waar soomaali hadduu jecel yahay markii calanka la qaatay muxuu ugu biiri waayey shanta soomaaliyeed uu sheegayo eygu dhalay muxuu ugu biiri waayey ma maantuu soomaalinimo jecel yahay ma soomaalidu maaragtay uu xamar ka qarxinayo uu xamar ka baabinayo uu waxa terroriska o dhan ba maaragtay uu baasbooradii siiyey war sheekada waa ka dheregsanay soomaalina teedii bay la kaca kufaysaa ee u taallaa ninka muuse bixi ee merceneerka noo soo diray taa isaga u taallaa siduu ku badbaadinaya merceneerkaas merceneeradana waan qabanaynaa sharcigaan la tigsanaynaa hadduu ilahay laha marka waxaan leeyahay ciisow waa kaa plan bga ismaaciil cumar gele waa kaas uu doonaya dagaalka inuu soo geliyo canfarta etoobiya canfarta eritrea waan u sheegay canfarta etoobiya eritrea faraa ka qaada beritolan etoobiyana halkay maraysana aniga nii macneeyey ee nii sheegay marka sidaa daraaddeed ciise wuu ku fulan yahay inuu taliska gacanta mariyo oo meesha laga tuuro ciise wuu ku fulan yahay kadibna canfar iyo ciise ay miiska iskugu yimaadaan hadday noqoto etoobiya hadday noqoto jabuuti hadday noqoto samaara anu weliba waxaan ka jecelahay weliba inaan samaara iskugu nimaadno oon samaaro wala fadhiisano oon halkaa maaragtay aan dowladda labaad ee cusub aan ku dhisno hadduu ilaha oo reer jabuutiya oo aynay ka dhignayn city waa walaaladeen oo waan u mahad celinaynaa samaarana waa walaaladeen waa u mahad celinaynaa saas sileeg canfarta eritrea
iyo ciisaha iyo soomaalida joogto maaragtay awdal marka waa midaas waxaan nii sheegayo wayna socotaa arrintaas wayna dhaqaaqaysaa beritoolana arka anigu wax badan baan nii sheegay wax badan baad aragteen oo run soo baxay waxaanan qoray oo garanaysiin oo letter de l'incendie ay ka hadashay 1991 siyaad bari markuu joogay muqdisho aan kaga dhawaaqay hotel dami hotel on shirkaa jireed aan ku qabto aan ku sheegay in ismaaciil cumar geele maalintuu madaxweyne noqdo uu isku dayayo inuu baabi'iyo jabuuti uu baabi'iisa halkaa uu ka bilaabayo marka wixii oo dhan maantayna hor taalla sidaan uga tababarsin lahayn sidaan maaragta isku gacan qaban lahayn yaan maaragtaan diyaar u nahay maanta marka walaalayaal baaqayga meel kasta gaarsiiya hana ka aamusina hana ka joogsanina marka ragga maaragtay xaarka iyo kaadida isku daraya ee cabsoonaya ee aniga meeshan maaragtay afka ii dhiganaya way dhammaatay waan nii imanaynaa waa waqtigiini wuu dhammaaday taa ballan baan niigu galnay waan ni naqaanaa waxaan oran lahaa low profile gala hoosta gala waqtigii aad maaragtay manaaska iyo dilka iyo sheekadii way dhammaatay beritoole xisaab baa nii soo socota xisaabtaas waa lama huraan wixii gacmaha dhiig ku leh wixii taliskaas u shaqaynayay ee ummadda gumaaday ummadda si xun u galay ummadda caayayay ummadda bahdilayay warniyow waqtigiina in adkaysta anaku waan adkaysanay intaa baan ku soo gaadhay oon adkaystay dhowr iyo 30 sinood baan adkaystay oon gaaji iyo rafaad iyo xabsi aan u soo galay dee ninkuna adkaysta oo dee maaragtay qaxootinimada iyo maaragta xaggaad u ordaysiin adkaysta ballan waxaan igu qaadnay inaad qaxooti runa aad noqon doontiin oo yurub aadna bedelaysiin aqalada iyo lacagahaad qaateenna ballan baan igu qaadnay inay dowladda cusub ay dhammaantood la soo noqon doonto oo annagu gaajadaan aragnay iyo gaajadaan ka soo baxnay iyo gaajadaan u halgamaynay ya inaad ininkuna aad dhadhamisiin waxa weeyaan waa cadaalad ma nin baa gaajada ku jira iyo maaragta dulmiga no ka geystana waa inuu arkaa si beritoole maaragtay qarannimo asli u dhalato oo kalgacayl runa u yimaado ya marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ilaahay khayr ha nooga dhigo diyaar noqda isdiyaariya beritoole etoobiya isbeddelka ka socda u duceeya walaaladeena oromo u hambaliyeeya walaaladeena tigraay walaaladeena maaragtay soomaaliyeed afar dhammaantood etoobiya ha is xorayso markay is xorayso waxaan haysanaa toddobaadada u horeeya bisha 2 bilood 3 bilood u horeeya inaan dowlad rasmi aan ku dhawaaqno oon dhisno oon ina cumar geliya taliskana gacanta ku qabanno oon gabood geyno oon fuaad iyo raggaas iyo gabasana aan soo wada saarno waa bilaahi towfiiq waxaan leeyahay asalaamu calaykum khayr baan igaga tagayaa sheer gareeya hadalladeedu waa dawo waana wax hubaala oo socda oo jira dhegaysta beritoole waxaan nii sheegayoo dhan beritoole si fiican waaga ilaahayna khayr ha ka dhigo etoobiya xorooday jabuuti xorooday ilaahay hana tuso ina cumar geel oo jeelka ku jira iyo raggiisa waa khayr yaa soo celin karaa magaca sharafta ciisoon baa soo celin kara ciisena go-aankaa uu qaatay wayna ka go-antay canfar ma soo celinayso ciise dhaqankiisii ixtiraamkiisii sharaftiisii ninka baabiye waa la ogyahay waa ismaaciil cumar geliye taliskaas 3 iyo 4 sanadood ciisena wuu gumaaday oo dee waa ka loo bixiyey ciise dilay canfarna wuu gumaaday beritoole waxay u taallaa ciise inuu sharaftiisii soo celiyo waa bilaahi towfiiq abtiyaaladay waan u duceynayaa adeeraday waan u duceynayaa ummadda jabuuti waxaan leeyahay waan jecelahay waa cusub baa dhalanaya khayr baan igaga tagaya waa bilaahi towfiiq noolaada jiroo jooga aamiin ما جريتو عفرت توبيا ما دغاغيس عفرت توبيا ما دغاغيس عفرت اريتريا ما دغاغيس عيسى او تالايو شرفتي في مغعيسه سو علي وبلن
مسج كوان قبيي وان سيداي لكن سكايل عليا عفرت جبت إلى جمالا لدونايا وبلان بيد اسماعيل مرجيلي تاس كورتلا وبلان vérité justice réconciliation وانا قاعد نشتغل صدق لا كما تقول ومرسلين آمين 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 وان سودوي هاي هذه بعد ما سنتين مركله يا مر لبعض ما صدح waxaan ilaahay jumca mubaarak beritole waa cusub dhalanay Ethiopia iyo Djibouti waa cusub dhalanaya kuna dar Soomaaliya iyo Eritrea insha Allah khayr baan rajaynaya share gareeya meel kasta gaarsiiya igana qora wada ka doonti taariikhda galaysa hadaladaas waa billahi tawfiiq